waxaan si qaas aan ugu hambalyeynayaa maxaa la dhihi jiray Somtel dahabshiil waqtiga ay geliyeen ummadda Soomaaliyeed inay hantidooda iyo aqoontoodaba ay u soo bandhigaan ay wadankana ku horumariyaan. waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo. hawshaas waxay ahayd waxqabad weyn. ka raalahaada waxaan ka tegey maxaa la dhihi jiray inaan dhammaan aan salaamo maamulka iyo ardayda iyo madaxda wadanka, khaasatan maxaa la dhihi jiray Dr. Ismaaciil. waxaan leeyahay garab istaaga aad tacliinta aad garab istaagan tahay rabbi ha kugu garab galo. walaalayaal waxaan is leeyahay waa fursad weyn ummadda Soomaaliyeed, fursad weyn oo ah. hawshaanana waa hawshayda, waxaan ahay injineer computer baan ahay. hawshaan in la hormariyahay waa hawl ummadda Soomaaliyeed wax badan u qabanaysa. shirkadda Somtel iyo Dahabshiil Group aad uga mahad celinayaa. ka jaamacad jamhuuri ahaan waxaan rabaa inaan ku bogaadiyo halkaana aan ka sheego in annaga jaamacad jamhuuri ahaan aan la leenahay Somtel wada shaqayn aad u dhow muddo dheer soo socotay ilaa iyo 2016 haddii aan mataqaanaa qiyaaso, taas oo lagu horumarinayay ardaydeena. maadaama jaamacaddu ay tahay jaamacad dhinaca teknolojiyadda aad ugu wanaagsan, waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. waxaan ku faraxsanahay in aan maantay idinkala soo qayb galna halkan. waan idin bogaadinaynaa insha allahu tacaala, ilaahay ha idin guuleeyo. waxaan rajaynaynaa in aad intaan kasii ballaarisaan awoodda iyo mataqaana adeega aad siinaysaan ummadda Soomaaliyeed, iyo gaar ahaan midda aad siinaysaan bahda waxbarashada ee ku saabsan 10kan program ee hadda ardayda ay ku tababaranayaan. waxaan aaminsanahay in intaan ka badan loo baahan yahay marka laga sheekeynayo ama laga hadlayo isfeerka ay teknolojiyadda leedahay. tii farxad weyn iyo qiimo ayay ii tahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan lagu daahfuraayo machad lagu tababaraayo ardayda Soomaaliyeed, gaar ahaan ardayda barato injineerinka iyo teknolojiyadda. waa arrin runtii bogaadin mudan. waa arrin Dahabshiil Group ay ku ammaanan tahay. runtii social responsibility-ga ama bulshada in lagu soo celiyo mas-uuliyadda ka saaran Dahabshiil Group ma bilaabanayso. waxaa jiro mashaariic fara badan ee hadda dalka ay ka qabato oo kor u qaadayo dhaqaalaha guud ahaan dalka. ay ka mid tahay Marina Project, ay ka mid tahay Dahabshiil Tower ee hadda ay dhisayso. runtii tanna waxay noqonaysaa arrin ay u gaar tahay Dahabshiil ay kusoo kordhisay bahda waxbarashada. runtii arrin bogaadin mudan waaye. doona insha Allah ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha ka soo baxayaan iyo waxaan u jeedinayaa maamulayaasha dadka meesha waxay u tahay tartanay u tahay. waxaa leedahay Dahabshiil Group waxay noo sameysay markas waxbarasho ah oo loogu talagalay ardada keenta kaalimaha koowaad. marka ardayga mucadalkiisa uu fiican yahay ee u dadaalayo, haddii la soo diro kan kale wuxuu isku dayayaa marka inuu kaa ku daysado. marka aan yeelno insha Allah kullamaa habba wadaba yaanan soo dirine aan u soo dirna Dahabshiil annagoo criteria u soo samaynayna ardadanaga. muhiimaddu ay tahay ardaygii mutafawiq noqda ee lagu dhiirigeliya niyow xanuntaas waxaa heli kara ardayga mucadalkaas keena. marka arday caqligiisu dhisan yahay, akhlaaqiyaadkiisa dhisan tahay, san dareemayo 1.9 ayaa meeshan lagu keenay. marka waa inaan soo dirnaa ardada aan u soo samaynaa tartan aan u soo gelinaa. waxaa sanadkan guulaystay Dahabshiil loo diray 10ka arday ugu sarreysa. marka arday walba soo ugu talagalo inuu meeshan ay noqoto fursad lagu tartansiiya ardadana ay u dhaqan oo noqoto dhiirigelin. intaasaan samayn lahaa. aan hayno oo teknolojiyada casriga ay kulligood waxaan rabaa in ilaahay nagu xiraan oo dhahno hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. marka ilaahay naga dhigo ku mahad celiya. markaan ka mahad celinana ilaahay wuxuu inoo sii furaya aafaaq kale iyo barwaaqooyin kale ayuu sii gaarsiinaya. nicmada oo lagu shukriyana guul ayaa lagu gaaraa. la in shakartum la aziidannakum. marka ilaahay inoo ziyaadiyo inaanu xil isu saarno oo hanti la geliyo meeshay dadkaas ku tababaran lahaayeen ee si sax ah ugu tababaran lahaayeen in la diyaariyo. taasna waad garan kartaa waxa ka dhalan kara. waxaan aragnay arday ka soo baxday jaamacado imtixaan ka qaadnay intaan u baahnay imtixaan ka qaadno oo levelkii laga rabay noo suuragelin waayey. 3 jeer aan ku celino imtixaan noocaas kale intaan u baahno inaan haddana levelkii la rabay aan ka weyno ama aan gadaal dib ugu sii tababaro ama waqti dheer oo dambe aan gelino. marka
arrintaas marka waxay nagu sababtay inaanu furno meeshan maalgelino meeshaanoo lacagta ku baxday aad arki doontaan qalabka gudaha yaalla oon kusoo wareegi doonaa 1.9 sidaan horey xaflado hore uga sheegay 1.9 milyan baa ku baxay lacagdan marka muxuu ahaa hantidaas oo macadkaas oo aan hadda hortiina ka sheegayo in haddii lahaydmo wax jaarji oo lagu samaynayo ardada ama wax lacagoo laga qaadaya ay ardada aanay jirin si free la rabo in ardada loogu tababaro muxuu ahaa mas-uuliyadda muxuu ahaa social responsibility-ga naga saaranna waddanka naga saaran ama dadkeena naga saaranna ay ahayd mid loogu talagalay in qaybteenna aanu kaga qaadano haddii lahaydmo waxaan rabaa wax kale iima furna ilaa iyo inaan idhaahdo Somtel waxaad abaarteen meel runtii aad iyo aad muhiim ugu ah jaamacadaha oo runtii ah maaragtay baahi aad aragteen oo baahidaasi aanu iska wada kaasho doono jaamacada waxa ay hayaanna ay ku kordhi doonaan wixii aad noo keenteenna aan ka faa'iidaysan doono marka meesha munaasabadda waxa ugu weyn waxay tahay inaan u mahad celinno walaalaheen Somtel iyo maaragtay dahabshiil group sida ay u garteen inay ka qaab qaataan ama qayb weyn ay ka qaataan yacni mas-uuliyadda ka saaran shacbiga Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed oo ah maaragtay arrin aanu maaragtay ugu mahad celinayno waxaa saaka bogaadin gaara mudan inay markay intaas sameeyeen ka bacdi ay goosteen inay haddana furaan xarun gaara oo ardada lagu tababaro si ay xirfadooda kor ugu qaadaan oo ay geliyaan lacag intaas la eg keli mustaqbalka fog arrintaas Soomaalida oo dhan ay faa'iido u noqon doontaa ayagana faa'iido u noqon doontaa oo waddankeena waxa aad loogu maaragtay gaabiska jira waxa kamid ah inay xirfaduhu aad u yar yihiin marka waliba gaar ahaan inay furaan adduunyada hadda joogta de muhiimadda tiknoolajiyada u leedahay waa wada ognahay noloshii oo dhan waxa la wixii mushkil ku jira hadda ka jiray tiknoolajiyada ayaa lagu daweeyaa waxaanu insha Allah ta'ala ku dadaalina talooyinkii halkan laga soo jeediyay inaan wada qaadano ee ku saabsanayd in aynu wax dadkeena wax ku celino caruurteena wax barno aqoonta aynu haysanana aynu kor u qaadno haddii Ilaahay ka dhigo ayaan runtii ku dadaali doonaa haddii Alla ka dhigo insha Allah idinkuna ha nagala daalina talooyinka iyo magaranaysaayay iyo wax sheega iyo baraarujinta nagala daalina Somtel barnaamijka ay sameysay waa barnaamij loo baahnaa tiknoolajiyada jaamacadaha hadda ay dhigaan way farabateen waxaynu u baahnaa ardayda in internship helaan waxaa kaloo jirta wasaaradda manhajkeeda waxaa ku jira dugsiga sare manhaj lagu daray technology wax la yidhaahdo lafteeda ardaydaas iskuulada dhiganaya technology macalin ka dhigaayo wuxuu dhigayaa wuu akrinaya wuu sharxaya laakiin practical ay u baahan yihiin laftooda ardayda jaamacada keliya maaha marka intaas inta lagu darsado daladaha maaragtay lala kaashado marka iskuulada markii la iskuul way farbadan yihiin laakiin daladaha marka lala kaashado iskuulo ay soo xuli karaan ardayda ka soo xuli karaan si ardaydaas maadada teknolojiyada qaadanaysa laftooda dugsiga ka baxaysa inay kasii faa'iidaystaan maxaa yeelay markuu jaamacadda sii galaya soo wax sii yaqaano sii galayaan bulshada waa anfacaya isaga naftiisa waa anfacaya xataa asoo dugsiga ka baxay haddii balaatika uu qaato reer danyar uu ka dhashay qarashka jaamacaddiisa uu kabo meel uu ka shaqayn karaa maaragtay uu ka kabi karo jaamacaddiisa marka waxaan rabnaa in lagu daydo Somtel iyo dahabshiil group dadaalada ay wadaan anaga wasaaraddan garab taagannahay jaamacadaha dalka ka jira way fara badan yihiin